waraysiga ka qaaday ayuu isna geeriyooday الله يرحمه marka ilaahay ha u naxariisto waxyaabaha anigu iga fajiciyay waxa kamid ah markii Cabdullaahi Raage uu ku ballan furay gabadhii uu uurka u yeelay wuxuu ku yiri shallaayo wuxuu yiri naaka oo bood weliga bilisto dhan u yeer bilis saani walaaq beledkoo dhan wareeg wadada isku baaci baabuur ha iska daymoon fiyaad baasha ka goy liida baal kala wareeg beexaani isku maqiiq balcad dhaaf iyo jowhar beledweyne mood ilaa balcad luge wuxuu balcad luge isku daadi baansiin iyo baaruud isku daar ama bood ama dhac barka doontaba mare boolida aad wado aniga ila baalmar haday ka bixin weysana booliisku imaayo beerkan ka tumaya beerkan ka tumaya waa billahi tallahi beerkan ka tumaya ma runtii shabeel naagood anaga oon xitaa daawan baan runtii ka dharagnay waa dadkii jiilka yaga ahaa oo ma ogtahay oo waxa loogu dhigay jiilkan dambana marka amaba jiilka dambe Soomaalida Cabdicasiis dad caruur badan dhalatay oo hadda qaangaar ah runtii sidii intii wardanku burbursanaa inta dhashay hadana qaangaaray oo saa ku aqliyeystay buugaagtaada markaad fiiriso dadkii hore waaba la iska garanaya waxay ka faa'iidayaan xusuus bay u noqonaysaa ku wax qaadasho u noqonaysaa laakiin jiilkan dambe maxaa isleedahay inay ka faa'iidayaan qoraaladaada runtiisa waxa ugu kalifay waxa kamid ah inaan ururiyo qoraalada Soomaalida waxa kamid ah waxa la ii sheegay bari dhexdaas gabar taagan hotel Jubba horteeda ayaa nin ka tagay magaalooyinkan wuxuu weydiiyay su'aala adeerow goormay sartaan sidaas noqotay markaas ay tiri oo sida waa hadda inta burbursan hadda waa inta burbursan tahay markaas waxay tiri adeerow sidee noqon lahayd sartaan markaas uu yiri adeerow goormay sidaan u burburtay markaas uu yiri oo adeer goormay burburi lahayd intaan jirayba sidaan ay ahayd oo ku arkay marka waxaan la dagaalamay anigu maanay arag Jubbo dhisano wada quraarada ma arag laakiin waxa khasaba marka dadka inaan xusuusino dhaxalkii dalka uu lahaa dalka sidii uu ahaan jiray waxa kale oo nin aan rabin runtii magaciisa inaan halkan ka sheego laakiin aan saaxiib nahay uu sheegay in ilmihiisa oo jooga Jarmalka uu u shiday cajalad video ah mar la mariyay 12 sanad guuradii 12 October markaas wuxuu yiri kaanka markaas wuxuu yiri abo halkan Soomaaliya Soomaha halkan ha markaas wuxuu ku yiri adeero abo gumaysigii markaa idin haystay dalku ma burbursanayn dawlad baa ka jirtay isagu ma garaadsan intii dawladii dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka jirtay ma ogeyn markaas wuxuu yiri abo cadawgan gumaysigan idin haystay dalka saa u dhisay goormuu dalka wixii uu haystay ma la dhaqaaqay buu yiri dalku halka marayo dalka sidan wixii mooda waqtiga la marayay dabaaldega inuu waqtiga gumaysigu haystay ma ogeyn dawladnimo soo martay Soomaaliya waxyaabaha lagu kalifay inaan ururino taariikhda Soomaalida taasa ku jirta dhinaca kale abwaanadu waa farbadan yihiin oo waxa jira Mustafa Sheekh Cilmi oo ka hadlayay markii dagaalada ay ka dhaceen Soomaaliya oo wiilkiisii la dilay oo walaalkii la dilay wuxuu yiri maraakiib hadoodina hadiyad lagu keeno hal igaba siiyaan waa igu hor qaataane gob la heeray habaar bay ka dhigeen duul u hiliyay rabbigeeyo hadeer baan ku ridi ku hiniyo aadi wuxuu yiri ilaahay hogaan idin helo aad ku hirataane hadal aad ku kulantaan waqay kuma heshiidaan hadimooyin aadan ka kicin hoos u sii gala kuwaad shalay hal gaadeen mar kale idin halakeeye meelaan hootada laga filay halaq ka gaado markuu uunku hal doog la dago meel habaar la ku fura waxa laga hagmaa garashada haawanka ahaada waxa kale isna waxa weyn waa hada dhibaatada faraha badnada u geystay darteed maansadiib ku sifeeyay ku inkaaray aad iyo aad marka dalkan aad arkaysaan runtii ilaahay sahle waa in loo duceeyo hadda waxaan isna jeclaan lahaa in dadku xusuusiyo markii hogaamiye kooxyada Soomaalidu ay mar kale garan waayeen inay u hiiliyaan shacbigooda ayuu abwaan Cabdi Maxamed Amiin wuxuu ku yiri Soomaaliya dhamaantiin kulligiin mar wada dhaha ilaahay dub idin sii dhulka idin la wada go hadhalinina oo hadiiqinina xooga lagu dhaqaaqay dhimirku idin shaqay waa dhalaan hadaad lahaydeen mid dhankiina kuma haro dhinta oo ilaahay gablan idin ku wada dhaaf dibbaad nagu haysaan eebe dhagaxyo idin saar dhamaantiin mid idin kama haro aqra dhankeedana ilaah dhamacyo cadaabdeed
dhinacyada idin saar horta fanaaniintu been ma sheegaan cabdicasiisow sida hadda waxa waaye waxaas waxay ka tarjumayaan dhibaatadii kadeedkii iyo xakaarkii la baday dadka Soomaaliyeed oo ay badeen dad kale oo Soomaali ah oo ku dhiiga oo ku diina oo ku dhaqana waxaan rabaa intaan ka bixin in aan ku weydiiyo cabdicasiis waxa wax ku qorta af Soomaali maanta af Soomaaliga waxa ehel u ah inta ku hadasha marka luqad walbaba ehelka saasa waa laakiin maadaama hadda wali maaragtay aan galabnahay oo aan nabad rasmi oo dalkeena ka jirta aanay jirin maamul xasilan aanu jirin af Soomaaligi wadanka wixii kala burburay af Soomaaliga cid daryeerayso gooni u fiirinaysa aanay jirin bal in af Soomaali wax lagu qoro oo luqadaadii ah oo wax ku qorto haddana aad tifaaftirto leen wuxuu leeyahay af Soomaaligu naxwu leeyahay shaqalu leeyahay shibanu leeyahay wuxuu leeyahay xarfa laba laabma baltaaka war maxaa talaad ka bixin lahayd runtii afka Soomaaliga waxaan hore u sheegay inuu ugu ku yahay dadka Soomaalida qaangaar uu dhaafay laakiin hadda ma jiro markii la qoray half qarni ma jiro dadaalkeenu wuxuu yahay maadaama dalku uu burburay Soomaalida isxil saartay waxay u halgamayaan in ama wax qortaa waxay u halgamayaan hanaan xasilan oo uu yeesho afka Soomaaliga wadamada reer galbeedka intaan ugu ogahay Soomaalida ku dhaqan waxa dhici karta in ubadka iyo waalidiintu ay isfaham darro inay ka dhex jirto oo waalidiinta Soomaalida qaarkood ay ku faraxsan yihiin ubadkooda inay ku hadlaan luqado kale oo ay runtii adag tahay in iyagu laftooda isfahmaan annagu waxaan ku dadaalaynaa inaan haqabtiro dadka Soomaalida ka haqabtiro qoraalka afka Soomaaliga runtii ilaahay abaal badan ayay dadka Soomaalida u hayaan Soomaalidii u istaagtay inay qoraan maxay ahayd afka Soomaaliga annaguna xilkeenu wuxuu yahay inaan dabagal le raacno Alif la cordebe, alif los debe, alif la gode.